بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومر لبعض يوم مدشا مهنتوسي waxaan u ahay muslim maxaa ii damaanad qaadaya inuu islaamku yahay diinta xaqa ah. maxamed ma yahay rasuulkii dhabta ahaa ee uu ilaahay soo diray. quraanku ma yahay hadalkii alle ee dhabta ahaa. waa maxay cadaymaha maangalka ah ee tilmaamaya in uu ilaahay jiro. maxaa dadayowga aan muslimiinta ahayn looga rabaa inay islaamka wax ka bartaan iyadoo aan aniga la ogolayn tamaaman in aan diimaha kale wax ka ogaado. maxay u jiraan xeer ciqaabeedyo islaami ah, xuduud. maxay tahay axkaamta adoonsigu. maxay u yihiin furashooyinku, futuuxaadku. haddii uu alle yahay mid naxariis badan maxay tahay qurgooyada qaanuuniga ah ee ku astaysan qur'aanka kariimka ah. waxaynu u jeednaa qisaasta. muxuu alle u abuuri waayey duni aan shar lahayn. sidee ayaan u rumayn karaa diin faraysa shaygayga inuu i garabo. maxay diintu u bannaysay xidhiidh gogoleed oo aan sax ahayn, milkul yamiin. maxay saxaabadu isu maandhaafeen. sunnadu ma tahay mid sugan. miyaan ku qasbanahay in aan sunnada raaco. haddii garaadka iyo diintu ay isgarab weydaartaan maxaa ila gudboon. mudane iyo marwow waxa aynu maanta bilaabi doonaa tebinta barnaamij aqooneed oo la magac baxay madasha maantoosiye. haddaba fagaaraheennan madasha maantoosiye ma ku soo bandhigi doonaa jawaabo si mug iyo miisaan aqooneed leh uga warceliya isweydiimaha aynu kor ku soo xusnay. haa, waa aynu kaga jawaabi doonaa waanaynu ku soo bandhigi doonaa jawaabo ay ku lanan tahay habraac aqooneed oo ku qanciya. laakiin intaas ka hor waa in aynu dhisnaa baraarugeenna diineed, waa in aynu kobcinnaa aqoonteenna iimaaneed. heesta geeluna waa ay kala horraysaaye waa in aynu arrimaha u kala horraysiinnaa sida ay u kala horreeyaan iyo sida ay u kala mudan yihiin. waxa shaki la'aan ah qaar badan oo inaga mid ahi inay la kulmaan shubahooyin iyo shakigelinno ku wajahan waxyiga rabbi. haddii aanad lahayn aqoon aad sigaga difaacdo waxaa laga yaabaa in ay laabtaada ku sameeyaan cidhiidhi. haddii ay kugu bataanna in ay gilgilaan yaqiintaada aad ka aaminsantay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa. haddaba sidaas darteed hadafka ugu weyn ee aynu barnaamijkeennan ka leenahay waxa uu noqonayaa qeexitaanka dhidibada iyo dhaabadaha fayow ee aynu u cuskanayno iimaankeenna iyo rumaynta alleh subxaanahu wa tacaalaa. waxa aynu yeelan doonnaa haddii allaha weyne oggolaado dhudindhowr aqooneed oo aynu ku kala hufi karno saxa iyo gefka. barnaamij aqooneedkani waxa uu noqon doonaa mid koriya oo kobciya ku qanacsanaanteenna islaamka iyo soo noolaynta meeqaamkii sharafeed ee muslimiinta. waxaynu taxanahan aqooneed ku bilaabi doonnaa korinta iyo kobcinta dhidibada diineed ee muslimka. waxaynu arrintaa uga warrami doonaa si gogol xaadh ah innagoo sheegayna sugitaanka iimaanka, tiirarka waaweyn ee islaamka iyo dhisitaanka aqoonta diineed ee daruuriga ah. waayihii islaamka iyo hanaqaadkii farriinta alle subxaanahu wa tacaalaa. waxaynu gudihiisa kaga hadli doonnaa oo aynu ka abbaari doonnaa xaaladdii maka iyo xilliyadii ugubka ahaa ee islaamku uu soo maray, shaqdiyaddii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo farriintii loo soo igmaday, xilgudashadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo hanaansamidii gaadhay daafaha adduunka. waxaynu sheegi doonaa qofkii kacay ee islaamka iyo yididiilada soo noqoshadii laba. waxaynu arrintaas ka tilmaami doonaa faafitaanka islaamka iyo muddadii koobnayd oo uu ku gaadhay albaabada Vienna. waxaynu sheegi doonaa facii muraayadda u ahaa diinta ee uu soo barbaariyey warihii ugu doorka roonaa dunida. waxaynu ka sheekayn doonaa qarniyadii bogdanaa ee islaamka. waxaynu ka hadli doonnaa ilbaxnimadii islaamka iyo haliyadii xambaarsanaa. waxaynu iyadana ka abbaari doonnaa islaamka iyo aqoonta, burinta aragtida ismaandhaafka aqoonta iyo iimaanka. sidoo kale aqoomihii ay iba fureen muslimiintu iyo waxyaabihii ay muslimiintu ku soo kordhiyeen
dhaxal reebka aqoonta. waxaa ka mid a waxyaalaha aan ka hadli doono halyeeyadii aqoontan xambaarsanaa ee islaamka, iyo weliba magaalooyinkii waaweynaa iyo goobihii taariikhiga ahaa ee aqoonta islaamka. waxaa ka mid a waxyaabaha aynu ka warrami doono qur'aanka iyo sayniska, innagoo sheegayna xaqiiqooyinka aqooneed ee uu qur'aanku tilmaamay 14 qarni ka hor. waxaynu ka warrami doonaa aqoonyahanka reer galbeed ee arrimahaas qiraya iyo waxyaabihii ay ka sheegeen. waxa aynu soo qaadan doonaa aqoonyahankii soo islaamay iyo sababaha ay diinta ku qaateen. waxaa ka mid a waxyaalaha aynu ku soo qaadan doono barnaamijkeennan iyo madasheenna maantoosiye taariikhdii fikirka reer galbeed, iyadoo aynu ka abbaari doono xilliyadii mugdiga ahaa ee taariikhda reer galbeed, middle ages, waayadii hinqashada, casru annahda, sidoo kale qarniyadii 15aad ilaa 21aad. waxaynu ka warrami doonaa dadyowga aynu ku tilmaami doono udabranayaasha fikirka reer galbeed. waxaynu iyagana ku samayn doonaa diraasayn iyo raaqaad. waxaynu ka warrami doonaa muuqaalka guud ee dadyowgaas. waxaynu sheegi doonaa sifooyin iyo calaam. waxaynu wax ka baran doonaa shakigelinaha maanta taagan. waxaa ka mid ah waxyaalaha aynu ku soo qaadan doono madasheenna maantoosiye afkaaraha leexsan ee lidiga ku ah diinta islaamka, sida alle ka koodka, kiristaamaynta, diin la'aanta, dhaqanbiiska iyo diin xumayska. waxaynu wax ka sheegi doonaa kadeedka haysta haweeneyda reer galbeed ee xorowday, heerkii ay lahayd haweeneyda reer galbeed ee xilliyadii hore iyo diimihii qadiimka ahaa, heerka ay taagan tahay haweeneyda reer galbeed ee nool qarnigan 21aad. waxaynu sheegi doonaa feminismka iyo sida uu isugu beddelay aalad labaad oo u adeegta ragga. waxaynu iyadana wax ka sheegi doonaa haweeneyda muslimadda ah iyo meeqaamka uu siiyey Alle subxaanahu wa tacaala. waa ayo cidda uu ku wajahan yahay barnaamijka madasha maantoosiye. barnaamijkeennan madasha maantoosiye aan ku soo qaadananaa waxa uu ku wajahan yahay mu'minka, mulxidka, ardayga, aqoon-yahanka iyo dhammaanteen, xataa mu'minka ilaahay rumaysan si badhax tiran ee aan iimaankiisu la ruxmaynin shubhooyinka. madashani waxa ay u tahay harimo aqooneed oo ay ka baran doonaan dhagax dhig iyo dhidibbo adag oo ay kaga afceliyaan shakigelinaha dhex muquuraya saaxada ballaadhan ee baraha bulshada. ilayn biyana meel godan ayay isugu soo ururaane iimaankeennu aynu alla rumaysannahay waxa uu ka dhaqaaqi doonaa bartii hore ee ahayd iimaan rumayn aan aqooni wehelin. waxaanu isu beddeli doonaa iimaan iyo aqoon isku ladhan.